aniga oo ku hadlaya magaca guddida horyaalada kubadda cagta Somaliland ahna agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaanu maanta halkan ka shaacinaynaa kadib markii kulan dheer aan wada yeelanay howlwadeenadii horyaalada caasimadda xiriirka kubadda cagta waaxda ciyaaraha maamulaha garoonka gudoomiyaha garsoorka gudoomiyaha guddida dacwadaha komishaneerada madaxa caafimaadka iyo dhammaan howlwadeenadii tartanka ka shaqeynayay waxaanu isla garanay nidaam ahaanna ay tahay in dib loo bilaabo tartankii horyaalada kubadda cagta heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaad ee caasimadda oo loo hakeeyay doorashooyinkii dhacayay isku sidkanaa ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta ballantuna ay ahayd in dib loo bilaabo marka ay doorashooyinkaasi dhammaadaan taas oo aan ku wargelinayno kooxaha ka qaybgalayay tartamada horyaalada ee caasimaddu inay u diyaargaroobaan in tartankaasi dib u bilaabmayo 1 bisha December insha Allah biidhnillah oo ah axadda toddobaadka inagu soo socda sidoo kale iyaguna waxa bilaabmaya horyaaladii heerka koobaad iyo heerka labaad ee gobolada Awdal Togdheer Sanaag Saaxil iyo Gabiley tartanka horyaalka heerka koobaad iyo heerka labaad ee gobolka Awdal wuxuu bilaabmi doonaa 1 December oo ah axadda inagu soo socota ee toddobaadka soo socda sidoo kale gobolada Togdheer iyo Sanaag kooxaha heerka koobaad iyo heerka labaad ee kubadda cagtu waxay bilaabmi doonaan 5 bisha December sidoo kale gobolada Saaxil iyo Gabiley waxay ka bilaabmi doonaan 10 bisha December insha Allah taala waa kooxaha heerka koobaad iyo heerka labaad ee gobolada Saaxil iyo Gabiley ee kubadda cagta runtii waxay la wada soconaa in dalka ay ka qabsoomatay doorashooyin kuwaas oo keenay in madaxweynihii hore madaxweynaha iminka talada haya iyo ay la kala wareegi doonaan xilka madaxweynaha cusub sidoo kale waxa dhici doonta in nidaamka ama hay'adaha dawladda ay isbedelaan oo ay wasiirada bedelaan agaasimayaasha guud ay bedelaan laakiin taas ma keenayso in ay nidaamkii shaqo ee ay wasaaradani u xil saarneyd ama hay'ad kasta oo dalkii u xil saarneyd inay istaagaan waa nidaamkaasi waa nidaam dawladeed waa adeeg dadweynaha loo qabto waa xil ay hay'ad waliba u xil saaran tahay marka taas ay ka turjumaysaa in nidaamkii socdo oo iyada oo nidaamkaasi socdo xilalka la kala wareegi doono waana dawladnimaduna waa qori isu dhiib marka waxa la wareegi doono shaqadii oo socota hadba cidii ilaahay wax alfo ee loo soo igmado nidaamkuna waa inoo soconayaa ciyaaraheena dawladii hore ee kulmiye wax weyn bay ka qabatay meelo wanaagsan bay soo gaarsiisay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisuna inay wax wanaagsan iyo halkii ay ka sii qaadaan oo ay horumarka qayb weyn ka sii qaataan tartamadaasi kharashaadkoodii iyo agabkii ay u baahnaayeen wuxuu ku jiray miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee 2024 waana u diyaar in lagu qabto shaqada iyada ah sidoo kale tartamadan waxaanu doonaynaa in ay dhammaadaan ugu dambeyn bisha January ee sanadka soo socda ee 2025 si tartankii isagana joogtada ahaa aynu qaban jirnay ee championku uu qabsoomo bisha February maadaama bisha saddexaad ama March ay tahay bil Ramadaan marka waxa kooxaha ku iman doona culays ah in la dedejiyo maadaama gaab badan ay nagu yimid waqtigii doorashada campaign-keeda ahayd kooxuhuna culayska inay nala qaadaan oo ay dhabarka u ritaan culays qaran baa yimid marka dhabarka ha u ritaan haddii maalintii 2 ciyaarood ciyaarayaan iyo haddii la ciyaarayo 3 ciyaaroodba taasaan ka codsanaynaa oo aan u sheegaynaa insha Allah bismillaahil alkariim waxaynu wada ognahay ciyaaraheenu muddo runtii 4 sano aba in agaasimuhu uu u ahaa runtii lafdhabar oo runtii uu marna agaasime waaxyadaha marna agaasime guud ahaa oo mar walba runtii taladiisu ay ahayd budhiga ciyaarahan aanu ku wadanay runtii anigu oo dareenkayga la soo koobi karin waan u mahadnaqayaa sida professionalka ah ee runtii shaqo yaqaannimada ah ee hufnaanta ku jirto ee uu runtii xilligan kala guurka ah uu u doonayo shaqadaasi si qurux badan
inay dhalinyarada iyo qaranka Somaliland ugu socoto anoo ku hadlaya afkii xiriirka kubadda cagta guud ahaan howlwadeenada gobolada oo dhan ka mas'uula runtii waan uga mahadnaqayaa garashadiisa iyo runtii sidoo u diyaariyay imkaaniyaadka lagu sii wadayo xilligan runtii doorashada laga soo baxay waxaan leeyahay sida agaasimuhu uu ku dhawaaqay xilliyada tartanku uu bilaabmayana uu sheegay in dhammaan kooxaha goboladu ay u diyaar garoobaan iyo kuwa caasimaduba waxaynu ognahay kooxaha goboladu in muddo ah runtii inay ku taamayeen in horyaaladoodii loo bilaabo waxaynu ognahay in runtii ololihii iyo doorashooyinkii runtii ay dib inooga dhigeen in ciyaarahaasi gobolada ka bilowdaan balse maanta alxamdulillaah qarankeeniyo midaysan inagiyo hal dhinac u wada soconna ciyaarihii waxa ay bilaabmi doonaan xilliyada oo runtii agaasimaha guud ku dhawaaqay goboladiina runtii waxaan farayaa inay diyaar garoobaan naadiyadii